munaasabadani maanta waxay ku saabsan tahay soo dhaweynta Korneyl Gamaal Baaxad oo hawlo shaqo ugu maqnaa dalka gudihiisa saldhigii labaad ee jabhadda ama ururka maalinba maalinta ka dambaysa ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ka imanaya cutub kii hore ka badan taasna waxa keenay maamul xumada iyo cadaalad darrada iyo taraabilisanka jeegaantu ku hayso ummadda waa la arki karaya nuux ismaaciil taani siduu uga cararay ceergaabo siduu uga cararay waa sidaas oo abadaa waqtigii fadhigu wuu dhammaaday lixda gobol ba jabhaddu way ka jirtaa waxay fulin doonaan hawlihii hore aan ugu dhawaaqay saraakiisha iyo wasiirada waxaa arki doontaan muuse guriga loogu daatay haddii allah wadale ogolaado oo waqti aanan dheerayn muuse siyaasadda ma yaqaan wuxuu yaqaanaa qorigana annagaa la garanayna haddii aan la yidhaaho annagaa la garanayna waa ka albaabada isku xidhay siyaasaddii dibadda iyo tii gudahaba إن شاء الله بإذن الله الكريم وقت أن وقت الدو إلى المدبر كم مقنع هقول كاسو أنا كفليني وراها قبل كالسنة وأنا ما أنا يقدر بشيء هراء سجال لا تكيد معك كمش أنت هو عنكم مقنع هقول كا ما أنت واحد شو قال سلك يجي كوال وحنا كسر مبحي سلك يلا بعض waxaan soo mahadcelinayaa odayaashii gobolka Sanaag ee aad ila shaqeeyay saasaynu wada shaqeynaa baan leeyahay shaqo wanaagsan baa qabateen baan leeyahay amoodina inaan tegey maan tegin waan soo noqonaya si degdeg ah oo soo noqonaya qolada la yiraahdo jeegaanta nuux taani wuxuu yiri inanka hala soo qabto nuux taani madaxweynuhu waa soo heli runtan idin sheegaya وحين بحضر سوق بتدمويان هاي قصور نقول وقصته